waxaan u mahad celinaynaa hay'adda Vikis oo barnaamijkan soo qaban qaabisay. waxaa idinku salaamaya dhammaan inta magac iyo maamuus ku leh halkan fadhiisa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam, barnaamijka maanta waxay ku saabsan labo isaasaardheed, midda nabadda ah iyo midda cafinta. horta nabad waxaa la yiri maxaa nabad loo qabanaa, maxaa see loo helaa. nabad waxay u baahan tahay in gunta hoos laga soo bilaabo ilaa fikta sar laga geeyo, labada oon la joojin la isku kaasho. midda kale oo la yiraahdo cafinta waxay maana su'aal badanaa ka maanay, yaa is cafinaa, yaana la cafinaa, qaabkeena loo cafinaa ay isbimad. hadda burburka dagaalada Soomaaliya ka dhacay waxaa dhibaato ugu baaxada weyn loo geystay qowmiyadda Banaadiriga. waa dadkii ugu mudnaay ee labeentii Banaadir, gobolkan Banaadir u dhashteen ayaa dhibaato weyn la gaarsiiyay. waa la dilay, waa la barakiciyay, waa la kufsaday, xoolahooda waa la boobay. ilaa hadda dulmiga wuu socdaa. ma lagu salay karaa, ma la dhahi karaa maanta cafis ayaa la sameynayaa. cafista goorma imaanee? cafista waxay imaanee markii Allah subxaanahu wa tacaala loo laabto. markii Allah subxaanahu wa tacaala loo laabto oo goob fagaara la isku yimaado oo alla la baryo, toobada waa aqbalmayso. iyo in dadkii oo dhibaatada geystay ay maanta ay soo hor istaagaan warbaahinta oo yiraahdeen walaalayaalo annaga wixii dhib aan geysanay maanta waxaana laga rabaa in aan la cafiyo. markaas adiga warkaaga waa ka baxda. qofku ama uu ku cafiyo ama uu ku cafinin, adiga baraaradaada waa dhiibtay. taas haddaan la sameynin dhibka waa sii soconee ilaa maanta qiyaama waa sii soconee. dulmigaas usoo laga bixin cafis ma jirnaa. heer xamar waxay ku mahmahdaan run ma noo sheegtiino raaxa ma noo rabtiin. run ma laisku sheego raaxa ma noo rabtiin. ninba rootigiisa uraaraa. maanta runta waa in laysku sheegaa. waxay kaloo ku mahmaadaan dulmi ma duugmo, waa soo daahira haba daaho. dulmiga waa in layska ilaaliya. waa shay allaha naga hortagay in qof bini aadan shakhsi ah la dulmiyo. dulmiga waa xaaraan. ilaahay asagaa dulmi iska bari yeele. annaga maxaa noo diiday inaan dulmiga aan isaga bari ka yeelno oo maanta dhibaatada ay jirto aan ka hor tagno. taasna waxay u baahan tahay annaga oo isku wada qaadino oo isku wada tashano. aniga ahaan magacii waa Dr. Cali Cumar Bati, ahna nabadoonka beelaha Banaadiriga. haddaan annaga nabadoonadeena haddaan isku tagin oon dhibaatada maanta Muqdisho ka taagan aan wax ka qabanin, cid noo qabanaysa ma jiro. hadalkii meesha ayaan kusoo gabagaynaya. wabilaahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi